waxaa la ii guuriyey nin i garaaci jiray anigoo 15 jir ah. aabbahay ayaa iga furay, aabbahay ayaana i caawi jiray, balse al-shabaab ayaa dishay. alxamdulilah waxaan la kulmay maxamed, mar labaad ayaan na guursaday. isla al-shabaab ayaa afduubatay maxamed. ilaah mahaddiisa wuu ka soo fakaday, laakiin Soomaaliya maan sii joogi karin. kismaayo ayaan ka soo baxsanay, boosaaso ayaana nimid, kadib Yemen ayaan doonu raacnay. Yemen waxaan kula kulannay nin Soomaali ah, wuxuu noo sheegay inuu na geynaya xerada qaxootiga ee qaramada midoobay. af carabi kuma hadalno, maadaama uu Soomaali yahayse waan aaminay. wuxuuse noqday dembiile, wuxuu naga iibiyey kuwa dadka ka ganacsado, kuwaasoo naga dalbadeen $4,000 oo madax furasho ah. lacagtaas maana woodin, marka sidii xoolihii ayuu nooga gaday nin dadka tahriibiye oo Suudaaniis ah, kaasoo isagana naga iibiyey nin Liibiyaan ah. ninka Liibiyaanka ah ayaa isagana mid kale naga sii iibiyey. sidaas ayaana Bani Waalid ku nimid. waxaan hal qol ku ahayn ku dhowaad 1,000 qof. way garaaci jireen, kufsi ayay iigu hanjabeen iyo inay xubnahayga igala baxayaan. arxandaradooda ma qiyaasi karaysid. maalinkii meelaha markay socdaan, dumarka ayay ul dhanka dambe uga dhuftaan. usha marka lagu dhufto macnaheedu waa in la doortay. nimankooduna way fahamsanaayeen, laakiin waxba maysan ka qaban karin. gabalku markuu dhaco way soo noqonayeen. dumarkii ay usha ku dhufteen ayay qol kala geysanayeen, kadibna way kufsanayeen. habeenada ka mid ahse kuwiina haysay dhexdooda ayaa xabad isku bilaabay. ilaahay mahadiis waan ka soo baxsanay. waxaan awood u yeelanay inaan doon ka raacno oo ugu dambeyn ka tagna dhibaatadaas. waxaan doonta ku saarnayn 140 qof. aad ayaan noogu faraxsanaay. waxaan ku ducaysanayay inaan meel nabad ah tagno. waan ogaa waxa ugu xun ee dhici kara inay tahay geeri, balse geerida ayaan ka doorbidayay Liibiya. kadibse shidaalka ayaa naga dhammaaday. ciidamada ilaalaha xeebaha Liibiya ayaana na qabtay. doontooda inaan korno ayay nagu qasbeen. gawaarida ciidanka ayaa dekadda naga kaxeeyey. waxayna geeyeen waxaan ku tilmaami kara xabsi oo lagu magacaabo xarunta Taariikh al-Sika. waxaa qol yariis ah la igula xiray 50 haween iyo baaldi si aan ugu xaajoono. bahdilaad daran ayay ahayd runtii. cunto nagu filan maynan haysan, biyo lacaba iska badaaye. dad badan ayaa la xanuunsanaa cudurka qaaxada, qaar ayaana dhafteyda ku nafbaxay. waa lay garaacayay, waxaana lagu cadibayay koronto. waqti ayaa ka soo wareegtay. waxaana loo sheegay in tookada soo socto aan bixi doonno. marka liiska magacyada cusub la soo dhejiyey, maxamed baa igu yidhi orodoo soo eeg, balse magacyadeenu kumaysan jirin. waxay ahayd inaan u sheego in mar kale nalaga tagay. dad badan oo naga soo dambeeyey ayaa horteen baxay. maxamedna caro iyo wareer ayaa isugu darsamay. waxay ahayd maqribadii oo kale markay dhacday. maxamed markii aan arkay wuu gubnaa. waxaa la ii sheegay inuu betrool isku shubay, kadibna uu dab isku qabtay. qof ka socda ciidamada Liibiya ayaa igu yidhi, maxamed geeridiisu alla ayaa qoray, waa inaad aqbashaa ood noloshaada sii wadataa. isla xabsigaas ayay igu hayeen ilaa iyo 3 bilood kadib geeridiisii.